waliga ma aragtay dawlad aan dhul nahayn amaba aan dhul haysan haddana dawlado badan ay u ictiraafsan yihiin madax bannaani oo baasaboorkooda aqbalaan. Waxa la dhahaa Order of Malta. Ururkan ayaa waxa uu xarun ku leeyahay Roma oo waxa uu guri weyn ku leeyahay halkaas. Dawladda Talyaaniga ayaa u ictiraafsan inuu yahay urur madax bannaan. Guriga ay degan yihiin waxa uu la mid yahay safaarad oo kale oo iyaga dhulkaas u madax bannaan. Ururkan ayaa waxa asaasay nin Kristaan ah oo cisbitaallo dadka lagu daweeyo ka sameeyay Qudus. Markii ay Kristaanku qabsadeen magaalada ayaa ururkan waxa uu yeeshay ciidan hoos yimaada. Markii ay muslimiintu la wareegeen magaalada barakaysan waxa ay u hayaameen jasiiradaha ku yaal Mediterranean-ka. Iyagoo markii dambe saldhigtay jasiiradda Malta oo ay xukumayeen, taasoo ilaa hadda ay magacooda ka muuqato Malta. Jasiiradda Malta ayaa waxa ay xukumayeen muddo gaaraysa 268 sano. Iyagoo xitaa mar xukumayay 5 jasiiradood oo ku yaalay Karibiyaanka oo ay markii dambe Faransiisku kala wareegeen. Sanadii 1789 ayaa hogaamiyihii Faransiiska ee caanka ahaa Napoleon Bonaparte uu ka ceyrshay jasiiraddaas, isagoo markaasi u socday inuu qabsado Masar. Sanadii 1860 ayaa dawladda Sweden waxa ay u soo bandhigtay dawladda noqotay bilaa dhul inay siiso jasiiradda loo yaqaan Gotland oo ah jasiiradda ugu weyn ee Sweden hoos timaada. Laakiin waa ay diideen sababtoo ah waxa ay ka rajo qabeen inay ku soo laabtaan jasiiraddii ay hore u xukumayeen ee Malta. Taas ayaa u suuragali weyday. Arrintaas ayaa waxa ay ku khasabtay inay u soo guuraan magaalada Roma sanadu markuu ahayd 1834, iyagoo xooga saaray xagga caafimaadka oo dhisay cisbitaallo dadka lagu daweeyo. Tan iyo waagaasna dhul ay si toos ah u xukumaan ma jirin. Taasi uma diidin dawlado badan inay ictiraafaan madax bannaanadeeda. Ururkan ayaa waxa uu safaarado ku leeyahay dalal badan. Waxaa ka mid ah dalalkaas Talyaaniga, Ruushka, Spain, Portugal, Brazil, Masar, Morocco, Suudaan iyo wadamo kale oo kor u dhaafaya 100 dawladood. Ururkan ama dawladdan bilaa dhulka ah ayaa waxa ay qaramada midoobay ay siisay inuu korjoogo ka noqdaan qaramada midoobay. Dawladdan ayaa waxa ay leedahay ciidan yar, laakiin ciidankaasi waxa ay ka hoos shaqeeyaan ciidamada Talyaaniga, waxayna qaabilsan yihiin xagga caafimaadka. Dagaalkii labaad ee adduunka ayaa waxa uu Talyaanigu la socday dhinaca Jarmalka. Haddaba markii laga adkaaday Talyaaniga iyo xulafadiisii ayaa heshiiskii 1947 waxa uu ka mamnuucay Talyaaniga inuu haysto diyaaradaha loo yaqaan bomboriska ee wax duqeeya. Haddaba Talyaaniga ayaa waxa uu ku wareejiyay diyaaradihii uu lahaa dawladdii aan dhulka lahayn ee Order of Malta, taasoo ka dhigtay inay yeeshaan ciidamo cir. Haddaba inkastoo Order of Malta dawlado badan ictiraafsan yihiin, haddana khubaro badan ayaa soo bandhiga inaysan weli buuxin shuruudihii dawladnimada, maadaama aysan lahayn dhul ay xukunto. Guriga ay ka degan tahay Romana uu yahay sidii safaarad oo kale oo aan lagu tilmaami karin dhul ay maamusho. Sidoo kalena ma laha furo telefoon u gaara ama domain internet u gaara.